Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa culays xooggan oo ay saareen kooxda BB iyagoo qorshayaal siiyay uu cadaadiska dunida kaga difaacayo oo uu diiday kadib dejiyay inay filim documentary ah ka sameeyaan dhammaan dambiyadii dalka ka dhacay si ay dusha isaga uga saaraan kuna tilmaamaan inuu isagu ka dambeeyay falalkana dhaceen xilliguu talada dalka hayay oo ay maxkamad ku saaraan kiis been abuur ah balse Hailemariam Desalegn ayaa kadib markuu arrintaas ogaaday in kiis loo diyaarinayo wuxuu si hoose isagoon la ogeyn uga baxay dalka kana degay cariga Mareykanka waliba isagoo qoyskiisii weheliyo. Hailemariam Desalegn ayaa ah nin magac iyo maamuus siyaasi ah ku leh qaaradan Afrika isla markaana dunida aad looga tixgeliyo maadaama uu shaqooyin badan ka soo qabtay Afrika wada shaqeyn badanna la soo yeeshay madaxda qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba ahaana ninkii xilka Abiy uga horeeyay ee sida nabad ah ugu wareejiyay kadib markuu iscasilay isagoo u daneeyay shacabweynaha Itoobiya maadaama oo xilligaas uu qalalaaso siyaasadeed dalka ka jiray sida ay taariikhdu qorto walow lagu eedeeyay in maxaabiis badan lagu tacadiyay xilligiisii isna uu ka gilgishay hawshaas. haddaba Hailemariam Desalegn ayaa kadib markuu fahmay in manaxa Abiy ka suurowdo inuu xataa kharajin karo maadaama uu qorshihiisa caalamka iga difaac adiga lagu aamini ahaa ka diiday iyo in Abiy uu shaarka siyaasiga ah ee loogu istaago Hailemariam Desalegn ka wasakheeyo ayaa wuxuu go'aansaday inuu khatarta kaga soo wajahan dhanka Abiy iska badbaadiyo sidaas darteedna uu maanta Mareykanka uga dagay. dhanka kale ciidamada difaaca Tigreega ee garabka Gondar ka howlgala ayaa 3 kifladoor oo ciidamada Abiy iyo kuwa axmaarada isugu jira aakhiro u sagootiyay sida uu xaqiijiyay afhayeenka kooxda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF wuxuuna intaas ku daray inay ciidamada difaaca Tigreegu u sii siqayaan dhanka magaalada Gondar oo ay sheegeen inay darbiyadii iyo difaacyadii adkaa ee ka sokeeyay dhammaan jabiyeen waxa hadda u hadhayna uu yahay oo kali ah gelida magaalada Gondar. dhanka afartana dagaalo 4 maalmood socday oo lagu halaagsamay ayaa laga soo tabinayaa kuwaas oo ay ciidamada difaaca Tigreegu sheegeen inay awood walba oo ka hortimid ciidda ku dareen iyadoo bay dhaheen ay ciidamada Abiy isticmaaleen duqeyn dhanka cirka ah oo drone iyo helicopter nagu weeraray balse kari waayay inay hal goob ah oo aan horay u qabsanay dib noogala wareegaan iyo inay annagana waxyeelayaan toona taas beddelkeediina waxyeelooyin u geystay shacabka canfarta ee ramiiga ah. ciidamada militariga Abiyna waxay madaafiic la dhaceen oo ay kiniisad weyn ku burburiyeen magaalo u dhow Xayq